waxaad moodaysaa in muuqaalada short form contactiga kaliya lagu sameeyo kombiyuutarka waad qaldan tahay saaxiib maanta waxaan ku tusinayaa sida loo sameeyo muuqaalo 3D ah adigoo adeegsanaya moobilkaaga welibana applicationka CapCut marka hore bal isla fiirino muuqaalka aan samayn doono. You ever think, why should we read book instead of other source of knowledge? Because the reasonable factor is a writing of a book. It contains thousands hours of experience. A writer may not... marka ugu horse waxaan tegi doonaa marka CapCut-deena anigu hadda already project waan sii diyaarsaday oo qaabkaas ayaan sii diyaarsaday kadibna markaad qoraalka oo dhan soo qorato farta ay tegi doontaa markaad thinking marayso ayaad markaa kusoo dari doontaa animationka tape 2 marka animationka tape 2 kusoo darto kadibna export ay ku dhufan doontaa kadibna halkan ayuu inooga bilaaban doonaa marka tutorialkeena inagoo haysana marka animationka ugu horeeya marka ugu horse waxaan tegi doonaa new project kadibna waxaan soo qaadan doonaa library baan tegi doonaa waxaan soo qaadan doonaa marka background cad ayaan soo qaadan doonaa waxaan soo sixi doonaa aspect ratio kadibna waan soo weyneyn doonaa marka saa u soo weyneyno aad u farlan tegi doonaa waxaana soo qaadan doonaa marka animationkan hadda soo save gareysanay kadibna waan soo ballaarin doonaa marka aan soo ballaarino waxaan tegi doonaa remove background kadibna waxaan ka sii tegi doonaa chroma key kadibna intensity ayaan kor u qaadi doonaa marka waxaad haysataa marka muuqaal noocaas ayaad haysataa kadibna waxaad sameyn doontaa inaad halka ugu horeysa keyframe ku darto waxoogaa yar aad socoto markaad waxoogaa yar socoto keyframe-ka labadeeda ku dari doontaa marka keyframe-ka koobaad hoos ayaad u celin doontaa rotation waad ku sameyn doontaa marka qaab noocaas ay ku soo bixi doonaa waxaan sameyn doonaa opacity-ga hoos u dhigno keyframe-ka ugu horeeya kadibna waxaan sameyn doonaa inaan marka splash tagno kadibna 0 aan ka soo dhigno qaab noocaas ay kugu soo bixi doonaa marka hadda waxaan sameyn doonaa inaan soo gashano codkii marka aan ku shaqeynaynay marka si aan ula socono animationada soo socda kadibna marka muuqaalka soo qaadano waxaan sameyn doonaa marka inaan extract audio ku dhufano markaan extract audio ku dhufano muuqaalka ayaan iska soo delete doonaa markaan soo delete waxaan sameyn doonaa inaan codka hoos u gaabiyo si uu khalkhal ii gelin kadibna waxaan sameyn doonaa inaan marka hadda aan bilowno animationka kan ku xiga marka sanu sameeyay animationkeena xiga waxaan tagi doonaa overlay kadibna waxaan ku qaban doonaa keyframe saddexaad ayaan ku qaban doonaa qoraalkan hadda soo gashanay keyframe afraad ayaan ku qaban doonaa keyframe-ka afraad ayaan dhinaca u riixin doonaa markaan dhinaca u leexino waxaan sameyn doonaa inaan ku daro marka graafkan markaan graafka ku daro waxaan sameyn doonaa haddana inaan marka aan fiirino natiijadan haysano okay natiijadu waa aad bay qurux badan tahay marka labada keyframe dhexdooda ayaad marka background-ka split ku dhufan doontaa background-ka aad delete doontaa waxa soo qaadan doontaa marka background-kan oo dhammaan assets-ka waa idin soo dhigi doonaa meesha background-ka marka soo qaadato waxaad ku dhufan doontaa transition max ayaad geyn doontaa marka max ayaad ku dhufan doontaa kadibna qaabka ayuu noogu soo bixi doonaa kadib markuu qaabka inoogu soo baxo waxaan soo gashan doonaa marka muuqaalkeenan xiga marka ayaan soo gashan doonaa marka why should be markaan why should be soo gashano ar ku dhufano kadibna iyadna waxaan ka soo saari doonaa marka background-ka ayaan ka soo saari doonaa markaan background-ka ka soo saaro intensity-gan waxoogaa yar ayaan dalici doonaa marka waxaan geyn doonaa halka ugu horeysan geyn doonaa keyframe ku qaban doonaa inagoo la soconina keyframe-yadii hore kadibna keyframe labaad baan ku qaban doonaa marka waxaan tegi doonaa keyframe-ka hore dhinacaas ayaan u riixi doonaa si aan uga dhigno marka mid hadda soo gelayso oo kale marka qaabkaas ay kugu muuqanaysaa graafka ayaad soo raacin doontaa marka graafkan hore u soo raacinay marka waxaad haysataa animationkan ayaad haysataa marka uu yiraahdo why should be ayaan marka waxaan sameyn doonaa inaan marka ku darno keyframe kale markaan keyframe-ka kale ku darno kor ayaan u riixi doonaa marka waxaan fiirin doonaa animationkan haysano okay waa animation aad u qurux badan marka why should be ay dhamaato waxa aan sameyn doonaa marka inaan marka goyno background-kan markaan background-ka goyno waxaan tegi doonaa background-ka ugu horeeya kadibna waxaan sameyn doonaa duplicate ku sameyno markaan duplicate ku sameyno waan ka dambaysiin doonaa marka qaabkaas ay inoogu soo baxay kadibna waxaan sameyn doonaa inaan waxoogaa yar soo gaabiyo kadibna waxaan tegi doonaa inaan mix ku soo daro kadibna qaabkaas ay inoogu soo bixi doonaa hadda waxaan soo gelin doonaa boxkii red box baan soo gelin doonaa animationkeedii kadibna kan ayaan soo qaadan doonaa markaan red box ka soo geliyo waxa aan sameyn doonaa marka uu saa u sii baxayo ayaan ku qaban doonaa marka keyframe-ka koobaad marka keyframe-ka koobaad ku qabto keyframe-ka labaadna waan ku qaban doonaa marka keyframe-ka labaad ku qabto keyframe-kii koobaad baan tegi doonaa hoos ayaan u dhigi doonaa marka waa inaan marka hoos u dhigo xagga hoose ayaan ka soo gelin doonaa marka xagga hoose ka soo geliyo qaabkaas ay noogu soo bixi doonaa kadibna waxaan raacin doonaa graafkan hore u soo raacinayna marka animationkan ayaan haysanaa
marka uu yiraahdo why should be read book waxaan ku qaban doonaa keyframe-ka ayaan ku qaban doonaa keyframe saddexaad ayaan ku qaban doonaa read books kadibna keyframe-ka afraad ayaan hadana ku sii qaban doonaa oo dhinacaas u riixin doonaa marka dhinacaas ayaan u leexin doonaa marka kadibna waxaan soo gelin doonaa marka qoraalkeeni kale ayaan soo gelin doonaa kadib markaan qoraalkeeni soo qornay waxaan sameyn doonaa marka in marka uu buugu dhinaca u baxayo inaan qoraalkan marka aan soo gelino marka waxaan ku dhufan doonaa qoraalkeeni animation ayaan ku soo dhufan doonaa kadibna tape 2 ayaan ka sii siin doonaa marka qaab noocaas ayuu noo soo baxay marka kadibna markuu saay noo soo baxay keyframe ayaan ku dari doonaa marka qoraalka keyframe labaadna oo ku dari doonaa oo kor ayaan riixi doonaa marka qaabka inoogu soo baxo kadibna waxaan tagi doonaa overlay marka waxaan soo qaadan doonaa marka icon-kan ayaan soo qaadan doonaa marka icon-ku saas inoogu soo bixi doonaa marka uu dhinaca uu farta kor dhaqaaqdo waa inuu icon-ku soo baxaa marka kadibna icon-kan ayaan tagi doonaa marka mask ayaan tagi doonaa marka mask tagno waxaan ka dooran doonaa mask mirror kadibna waxaan sameyn doonaa in keyframe-ka koobaad ku qabano marka keyframe-ka koobaad ku qabano waxaan sameyn doonaa keyframe-ka koobaad inaan isku soo ururiyo marka inaan dhamaantood aan isku soo ururiyo oo dhinaca keeno dhinaca rotation-kan waxaan ka dhigi doonaa 0 baan ka dhigi doonaa hadana wax xoogaa yar baan socon doonaa waan kala bixin doonaa marka oo waxaan ku soo celin doonaa marka siday ahayd baan ku soo celin doonaa double click ma ku dhufan doonaa rotation-kan waxaan ka dhigi doonaa 0 haduu ka qalucsamo 0 baad ku soo celin doontaa marka qaab noocaas ayaad haysataa marka kadib waxay noo soo baxay marka saas ayaan haysanaa kadibna waxaan soo qori doonaa knowledge baan soo qori doonaa si aan hoosta u soo dhigno marka kadib markaan soo qorin knowledge waxaan tagi doonaa farta kadibna waxaan ka sii dooran doonaa my fonts kadibna waxaan soo dooran doonaa fartan oo idin soo dhigi doona marka dhinaca description-ka marka waxaad sameyn doontaan inaad style tagtaan kadibna aad midabka ka soo dhigtaan midab waxoogaa buluug xiga marka qaabka ka soo dhigo animation ayaan tagi doonaa animation-kana waxaan raacin doonaa marka animation-ka mini zoom ayaan raacin doonaa kadibna markaan animation-ka raaciyo waxaan u guda geli doonaa marka animation-adeena xiga waxaan tagi doonaa marka add overland tagi doonaa waxaana soo qaadan doonaa marka background-kan ayaan soo qaadan doonaa marka background-ka soo qaato waxaad aragtaan marka in qoraalku uu marka ka sareeyo background-ka kadibna waxaan sameyn doonaa inaan tagno layers meesha ku qoran tahay layers markaan tagno waxaan ku dhufan doonaa all ayaan ku dhufan doonaa inagoo halkan ka sii doorano all markaan all ka doorano dhammaantood baan ka sareysiin doonaa markaan dhammaan ka sareysiiyo keyframe-ka koowaad ku qaban doonaa xoogaa baan socon doonaa keyframe-ka labaad baan ku qaban doonaa kadibna keyframe-ka koowaad iman doonaa oo hoos ayaan u riixi doonaa marka si qaabka inoogu soo baxdo kadibna waxaan tagi doonaa graph ayaan tagi doonaa oo graphkaas ayaan soo siin doonaa kadibna waxaad aragtaa inaan haysano marka animation-kan hadda waxaan sameyn doonaa marka inaan qoraalka aan soo raacsano qoraalkan ayaan soo qoran doonaa kadib markaad qoraalka soo qorato waxaad sameyn doontaa marka inaad marka farta ugu horeysa aad soo geliso animation-ka marka animation-ka zoom ayaan raadin doonaa oo soo gelin doonaa marka zoom out ayaan soo gelin doonaa marka qoraalka ugu horeeya hadana waxaan tagi doonaa marka qoraalka labaadna waxaan soo gelin doonaa tape 2 ayaan soo gelin doonaa marka qaabkaas ayuu inoogu soo bixi doonaa marka kadib waxaan sameyn doonaa marka inaan ku qabano marka keyframe koobaad kan kalena keyframe aan ku qabano kan kalena keyframe aan ku qabano marka afar keyframe aan kusoo kala qabano marka hoos ayaan usoo dhigi doonaa marka oo xagga ugu hooseysa ayaan keeni doonaa marka dhammaantood kadibna qaab noocaas ay noogu muuqan doonaan waxaan tegi doonaa graph waxaan soo raacin doonaa marka graafkii aan hore u isticmaalinay markaan graafkaas soo raaciyo waxaan sameyn doonaa marka inaan buuggii aan soo qaado haddaba inaan buuggii 3D-ga ahaa aan soo qaado ad ayaan sameyn doonaa kadibna waxaan raadin doonaa buuggii waa kan buuggu wuxuu leeyahay marka black screen ayuu leeyahay kadibna waxaan tegi doonaa marka splice ayaan tegi doonaa kadibna filter ayaan ku dhufan doonaa marka buuggii waa inooga baxay marka black screen waa inooga baxay marka qaabkaas ayaan haysanaa marka kadibna waxaan soo qoran doonaa marka buugga qoraalkii raacsan ayaan soo qori doonaa is a writing of a book kadibna waxaan sameyn doonaa markaan qoraalkii soo gashanay qoraalku waxa inooga baahay animation inooga baahan yahay marka is a writing marka uu leeyahay ayaan waxaan ku qaban doonaa keyframe ayaan ku qaban doonaa is a writing kadibna keyframe kale ayaan ku qaban doonaa is a writing xagga sare ayaan geyn doonaa marka qaabkaas inoogu soo bixi doonaa
isaraytan waxaan ku dari doonaa markaa graafkeeni ma ku dari doonaa bookna waxa aan samayn doonaa in animation tago kadibna aan markaa raaciyo tape 2 ayaan raacin doonaa markaa book waan yareyn doonaa oo dhinaca ayaan soo dhigi doonaa isaraytan waan soo dhaweyn doonaa markaa isaraytan dhinacaas ayaan soo dhigi doonaa xoogayna waa weynaysiin doonaa markaa qaab noocaas ay noogu soo bixi doonaa waa animation aad iyo aad u qurux badan kadib waxaan samayn doonaa markaa inaan book keyframe ku qabto keyframe labaadna aan ku qabto kadibna bookka keyframekiisa hore aan tago kadibna waxaan tegi doonaa qoraalkiina waxaan kusoo qaban doonaa keyframe koobaad dhammaan qoraalka keyframe koobaad baan kusoo qaban doonaa kadibna waan ka bixi doonaa oo waxaan tegi doonaa overligii anoo soo eeganaya markaa meesha uu keyframeka labaad yaalay kadibna waxaan kusoo noqon doonaa qoraalkii kadibna keyframe labaad ayaan ku qaban doonaa marka keyframeka labaad anigoo jooga ayaan qoraalka dhinaca wada bixin doonaa markaa dhinacaas markaan dhinaca wada bixiyo waxaan ku noqon doonaa markaa overligii kadibna buuggii baan markaa dhinaca u leexin doonaa marka qaab noocaas ayaan haysanaa kadibna garaaf ayaan raacin doonaa garaafkan hore u soo raacin jirnay markaan garaafkan hore u soo raacin jiray ayaan dhammaantood soo wada raacin doonaa qoraalka iyo markaa dhammaan iyo buugga markaba markaan qoraalkaa soo raaciyo kadibna waxaan fiirin doonaa natiijada aan hayno markaa okay marka uu dhinaca u baxayeed aragto waxaan ku noqon doonaa overligii kadibna overlig waxaan ku qaban doonaa keyframe koobaad baan ku qaban doonaa marka keyframeka labaadna waxaan ku qaban doonaa marka uu dhammaado marka uu keyframeka labaad markaan ku qabto marka uu dhammaado keyframeka labaad baan u tegi doonaa splice baan tegi doonaa markaa waxa aan markaa gaabin doonaa marka opacityga marka qaab noocaas ay noogu soo bixi doonaa kadibna waxaan soo qoran doonaa qoraalkeeni ahaa it contains kadib markaan qoraalkii soo qaadano it contains waxaan tegi doonaa markaa farta animation ayaan tegi doonaa marka animation tago tape 2 ayaan raacin doonaa markaa qaabka ayuu noogu soo bixi doonaa waxoogaa yarna waan yareyn doonaa bartankana waan ku beegi doonaa markaa qaabkaas ay noogu soo bixi doonaa haddaba halkan waxay nooga bilaabmi doonaa animationkeeni marka ugu adkaa meesha animationkan waxaan samayn doonaa marka inaan dhammaan wada gaabiyo kadibna overlig ayaan ku noqon doonaa waxaan ku qaban doonaa markaa backgroundkeeni hore bluegii baan keyframe kale ku qaban doonaa haddana keyframe kale ayaan ku qaban doonaa marka waxoogaa yarba opacityga kor soo qaadi doonaa si qaabkaas oo inoogu noqdo markaa it contains marka uu soo dhameeyo kadibna overly ayaan soo qaadan doonaa waxaan soo qaadan doonaa marka saacada yar baan soo qaadan doonaa wareegaysa 3D-ga kadibna splice baan tegi doonaa waxaan ka saari doonaa markaa backgroundka madow baan ka saari doonaa kadibna dhinacaas ayaan dhigi doonaa markaan saacada koobaad dhinaca dhigo waxoogaa yar baan qalloocin doonaa kadibna waxaan samayn doonaa duplicate sameeyo markaan duplicate saacada yar ku sameeyo waxaan hoos dhigi doonaa markaa saacadeeda kale ayaan hoos dhigi doonaa kadibna waan qaadi doonaa oo dhinaca ayaan dhigi doonaa anigoo yareynaya markaan dhinaca dhigo anigoo yareynaya waxaan kaloo sameynaya markaa inaan mar saddexaad duplicate siiyo markaan mar saddexaad duplicate siiyo iyadna waxaan hoos dhigi doonaa markaa saddexdaba waan hoos dhigi doonaa kadibna waxaan bilaabayaa markaa inaan duplicate-kii kale aan qaado markaa oo dhinaca markaa aan geeyo markaa iyadna dhinacaas anigoo markaa dhinaca iyadna u soo qalloocinaya kadibna waxaan soo qoran doonaa tan waan soo yar ballaarin doonaa si ay midabku inoo yar wada gaadho kadibna waxaan soo qoran doonaa qoraalkeenii ahaa markaa thousands of hour kadib markaan soo qorno qoraalkeenii waxaan tegi doonaa hours kadibna waxaan tegi doonaa animation waxaana kasii dooran doonaa animationka flicker baan kasii dooran doonaa markaan animationka flicker kasii doorano waxaan soo qaadan doonaa marka overligeenii markaa tirada ku soconayay marka overligeenii aan soo qaadan doonaa markaan overligeenii ad aan soo nidhaahno waxa aan samayn doonaa marka inaan kasoo saarno markaa backgroundka madow waxaan tegi doonaa splice kadibna filter baan ku dhufan doonaa kadibna waxaan hoos dhigi doonaa dhinacaas ayaan hoos dhigi doonaa hour ayaan hoos dhigi doonaa waxoogaa yarna waan weyneyn doonaa markaa waxoogaa yar aan weyneeyo waxa aan samayn doonaa markaa inaan tago markaa overly kadibna aan kasoo doorto markaa library kadibna aan soo qaato markaa backgroundka madow markaan backgroundka madow soo qaado waan ballaarin doonaa backgroundka madow marka aan ballaariyo waxaan tegi doonaa markaa mask ayaan tegi doonaa kadibna waxaan kasii dooran doonaa maskigan kadibna halkaas ayaan ku dhufan doonaa kadib halkaas ayaan ku dhufan doonaa markaan dhinaca ku dhufto halkan ayaan markaa saa odhan doonaa markaa si loo moodo markaa in qoraalku markaa meel mugdiya ku dhex jiro kadibna waxaan samayn doonaa tigta ayaan saari doonaa kadib waxaan tegi doonaa overlay ayaan tegi doonaa backgroundkeeni madoobaabaan dib u dooran doonaa markaan dib u doorto waxa aan samayn doonaa markaa inaan tago layer
saan uga soo kormariyo markaa qoraalkan saan uga soo kormariyo markaa saacadahaas kadibna waxaan samayn doonaa markaa inaan ku darno haddaba effectiyadii ugu muhiimsanaa effects baan tegi doonaa video effects baan kasii tegi doonaa haddana markaa waxaan ku dari doonaa effectigan ugu horeeyaan ku dari doonaa marka effectiga markaas ugu soo darno waxaan samayn doonaa markaa inaan tagno marka object kadibna all ayaan ka dhigi doonaa kadibna waxaan wada gaarsiin doonaa dhammaanba wada gaarsiin doonaa kadibna waxaan samayn doonaa inaan tagno markaa haddana glow aan kusoo dari doonaa si uu xoogaa yar oo edit garow inoo noqdo kadibna hal mar baan ku dhufan doonaa object aan kusii dhufan doonaa video baan kasii dooran doonaa markaa qaabka inoogu muuqan doonaa halkan ayaan ka maamuli doonaa markaa iftiinka iyo glowga markaa qaabkaas inoogu soo muuqan doonaa markaa hal mar baan isla fiirin doonaa markaa muuqaalka ugu dambeeyaan haysano okay saaxiibayaal halkaas muuqaalku inoogu joogi doonaa fadlan haddaa ka heshay muuqaalka like saar haddaad doonayso dhammaan sayskana waxaad ugu tegi doontaa qaybta description-ka waa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh